السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن شاء الله ورم بدنين بين كأردن هدي ربي حكمه موضوع الربا أي عموما وحن في الأيام لقى هذلي الكسب الحلال أما حكسي حلاشه وحلقات المامي المركز إنه الربا كورنه في الشريعة إلهي سبحانه وتعالى حكم عدبه كدتشيي ومسلمين تسكوا فخصنتها أصليا إن الربا حرام تهي وقرآن كسوا أروري وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كسوا أروري وبعض العلماء إجماع صار نقلنا يعني إن لقوا كل سين آيات كمثال كسوا أروري وحكم دين إلهي وأحل الله البيع وحرم الربا إلهي بيعه وحكى لك قضى الشضة هي التجارة دواب النية الربا ده سوادي ده يعني الربا ده هنا يبيع حين بقى رب التلمامية إلهي وحلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون warkuwa iimaanka laga helay oo Ilaahay leeyahay war alla ka dhowrsada oo ka taga ribada wixii ka hadhay haddii aad tiin kuwa mu'miniina hadda diidaan baa Ilaahay dhina ribada iska daysaan dagaal baan idin iclaamiyo ogaada baa Ilaahay leeyahay dagaal alla iyo rasuulkii iyo idinka idin dhaxeeya saa ogaada macna waxa weeyaan ninkii raba inuu Ilaahay la diriro fadal ribada qaado oo cun ama bixi ninkii raba Ilaahay iyo rasuulkiisa inaanu dagaal la gelinowna ribada iska daaba Ilaahay leeyahay waxa kale oo Ilaahay tilmaamaya alladina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas aakhira marka la tagana kuwa ribada cuma isma soo taagan baa Ilaahay leeyahay ilaa iyo sidii nin waalan oo gabi dhaclaysanayo bay soo taagan takhabbut qof aan istaagi karin balance ku kalunsan yahay إلهي وحلي يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي وبركة تريا وترتريا الربا ده وحي الصدقة أنا ألا وهجاتشنيا آيات بدنا قرآن قصة أروري إلا علماء ذا يدهدان شن عقابات بقرآن قصة أروري ومد حرب قاطعي ومد تخبط كايهي إلهي سبحانه وتعالى وكت المامين أنا مرنا بصينا وبنانين ومد محققين وشيء نويهي ومد هدات استحلال ستكفر وياهي ومد خلود في النار ياهي شنطة عقوبات با آيات كسورة البقرة بيكو شرابي علماء التلمامان هدين السنة النبي قولنا مادنا عليه الصلاة والسلام إيانا حديثك صاررتي واتربضرتي وحكم إذا حديثك بخاري مسلم بورين إيان النبي قول عليه الصلاة والسلام تضبط وحلاقك فقادة السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات تضبط لو هلاك سماء وحلاقة كدرك أبو النبي يري وما حيبه إلى إله رسول كيسي وتضبطاس وحو النبي يقول وقال لي شرك بالله إله الله شريك ياله سحر للسماء يضدك الله قتل نفس دل نفل قويه حق در لغو قويه ربا الله عنه حلاق وميد الله لقه قوب دقالو جهادو لغا دبر جيديو لغا بحصدو dumarka muxsanaadka dumarka dhowrsoon ee aan xumaha lagu aqoonay ogeyn ee mu'minka ah oo xuma lagu tuhmo lagu ceebeeyo qadfi lagu sameeyo intaas ba nabigu wuxuu ku sheegay inay yihiin maxay kuwa lagu halaagsamo toddoba kamida waxa kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam habeenada kamida inta la dheelmiyay xadiiska Bukhari siduu sheegayo ayaan waxaan soo maray buu yiri duul nin biyo ku dhex jira iyo nin biyaha ka baxsan wabi soconayo nin dhex taagay midna ka baxsan yahay oo ka baxsan ka ku dhex jira markuu israa biyaha ka soo baxba ka kala dhagax buu ku tuuraya afka kala dhacaya oo dib buu ugu celinaya markaasaan idhi war waa maxay kani dhagaxa lagu tumayo meesha ka bixi kari la wa akilu riba buu jibriil ugu jawaabay kani waa kii ribada kuwii cuni jiray weeyaan xadiis kale waxa uu nabigu ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam inuu mal'uun yahay la'ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam jaabir ibn abdullah alayh xadiis saxiixa ان waxa
nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday oo lacno korkiisa ka yeelay ayo ninka ribada cuna iyo ninka ka wakiilka ah iyo ninka qoraya iyo ka markhaatiga ka ah wuxuba ka cunaya iyo ka aakilu riba wa muukilah ka cunaya iyo ka cunsiinaya yacni ribada nin baa lacagta qaadanayo dadka guraya waa aakilu riba midna waa kan la guro oo siinayo waa muukilu waa kii ribada cunsiinayey kaatibka ka qoraya ee ka shaqaynaya meesha qoraya kuwa markhaatiga ka noqonaya hum sawaabu nebigu yidhi lacnadda intaasi waa ku sibantay intaasiba lacnadda waa ku sibantay waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo laga soo naqlinayaa xadiid la asixinayo hal dirham oo ribo ahi hal faran oo ribo ahi yacnii inuu la mid yahay ama ka adag yahay 36 geeroo la zinaysto faran iyo zina la isdhinac dhigaya markaase waxaa la leeyahay zinadaa labada fudud waxaa dhib badan baa la leeyahay maxay faranka ribada baa la tilmaamaya xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu hadlay oo khudbadeeyey oo ribada iyo arrinkeeda ka warramay ayuu yidhi ina dirhama yusiibuhu arajulu min alriba halka dirhama nebi qof ka soo gaadha ribada acdamu cinda allahi fi lkhati'ati min 36 zaniya yazniha arajulu ina arba ariba cirdu rajuli lmuslim 36 jeer aad zinaysato ayay ka xuntay buu tilmaamaya ribooyinka kuwa u foosha xun lana waxaa ka mid ah walaalkaa cirdigiisa aad calaaliso idan axaadiistaasi xadiid kalea wuxuu sheegayaa oo saxiix ligayri culammadu ay ku tilmaamayaan alriba 72 baaba ribadu inay 72 albaab 72 baab inay tahay waxa ugu yar baa la yidhi mithlu ityaani rajuli ummah ninkoo hooyadii wax ka daya wa ina arba riba istitaalatu rajuli fii cirdi akhiih axaadiistaa markaynu eegno waxay tilmaamayaan iyo aayaadkii qur-aan ee aynu nidhi 5 shay oo ciqaabay ku sheegayaan iyo axaadiistan marka la isku daro waxay tilmaamayaan dunuubta ugu waaweyn ee la gala inay ka mid tahay kabaa'irta gaalnimada iyo dilka iyo kuwaasay la saf tahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy maa dahara fii qowmin الzinaa wاlriba ilaa axalluu bianfusihim cadaab allah duul daahira muuqata kama noqota buu nebigu yidhi zinada iyo ribadu wax aan la isku inkirin oo caadiya ma noqdaan ilaa iyo kuwaasi alle ciqaabtiisay mutaysteen alle ciqaabtiisa ayaa ku soo degaysa waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamanka saacadda horteed qiyaamaha hortii waxyaabaha caan bixi doona inay 3dani ka mid tahay ribada iyo zinada iyo khamriga cabistiisu inay noqon doonaan maxay muntashir wax faafa inay noqon doonaan war dunuubta kuwa aan la dhaafin iska ilaaliya buu nebigu yidhi ee toobadda xooggan u baahan waxaa ka mid ah alguluul guluulku waa xoolaha muslimiinta ka dhexeeya oo la xado faman galla shay-an ataa bihi yowma alqiyaama ninkii wax xadaa maalinta qiyaama isagoo xambaarsan buu la imanayaa wa aklu riba faman akala riba bucitha yowma alqiyaamati majnuunan yatakhabatu ثuma qara'a aladiina ya'kuluun الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المص sidii kii shaydaan derderay ee waa shay miisaanku ka lumay sidiisoo kale u soo kacayaan baa la yidhi qof ribo ma badsada baa nebigu yidhi ilaa iyo cidhibteeda dambe wax la-aan bay noqotaa dee maanta dhaqaalayahanada dunida waxay isku raacsiisan yihiin akbar mashkilaadka caalamka haystaa inuu interestka yahay waxaanay isku rumaysan yihiin waagii hore muddoy qaadan jirtay hadda qaabka loo wado more or less every 10 years mar inuu recession dhaqaalaha dunidu inuu geli doono 2000 maxay 8kii buu galay haddana imikuu galay waa recessionis dumistani waa interestkan tirada badan lee laysa saarayo soo duuduuboo nebigu wuxuu leeyahay ribadu inkastoo la ay badato caaqibadeedu waa wax la-aan bay dhashaa yaraan ayay dhashaa buu nebigu tilmaamaya imaamu nawowi intaasi waa qur-aan iyo xadiidkan idiin soo naqliyo kooban imaamu nawowina wuxuu leeyahay
أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه. مسلمين تو اسكو وافق سنتي الربا إنay xaaraan tahay haba isku khilaafaan masaa'ilka qaarkood kani min riba mise riba maaha ama tacriifka ribadu intuu yahay waa masaa'il khilaafiyo hoose waa ku jiraan ama cumuumka ribadu inay mamnuuc tahay waa la isku waafaqsan yahay taasi waa diinta islaamiga oo diima samaawiga hore miyay ku bannaanayd waa maya diinta yahuudda haysatana kuma bannaanayn ilaahay baaba qur-aanka inoogaga warramo wuxuu leeyahy waxyaabihii lagu ciqaabaya maxaa ka mid ah wa akhdihim alriba waqad nuhuu canhu baa ilahay yidhi wa akhdihim alriba waqad nuhuu canhu wa aklihim amwaala annaasi bilbaطili waactadna lilkaafiriina minhum cadaaban aliima ribaday qaadanayeen baa ilahay yidhi iyadoo laga reebay kutubtoodana saasaa ugu qoran fii safri tathniya isxaaxa 23aad saasaa ugu qoran iyo waxyaaba ay ta'wiiliyeen oo sheegaya yuhuud waxay dhahdeen innaga dhexdeennay mamnuuctay inta badan yuhuuddu ribo isma siiyaan ma kala qaataan laakiin bay yidhaahdaan ma cidda kale umamiyiinta ka gur waxaad ka guri karto umamiyiinta maa cala almu'miniina min sabiil weeyaan laa calayna min sabiil kiniisaddu kristanka hadda agtooda miyuu ku bannaanaa maya رجال الكنيسة يا مدحدود يا مجامعدود يا يسوي من جرين وحي سكوا فقصنايين ربادو التحريم قاطع عينيتي ممنوع عينيتي حتى الآباء اليسوعيين عبارات بيسو شيغيان أي شيغيان إن المرابين يفقدون شرفهم فيه كو الربادة عناه شرف كودا ويوايا أهل أماها إن لكنفا بيلي وبدا ذكرستنا كو الربادة عناه أكلوا ماها إن لكنفه ساد رادد ولم يكن تحريم الربا قاصرا على أرباب الديانتين هذا بقى لبدا الديمودو قرد حارنتنمدو كما كوبنين بل التاريخ ذا بيليين تاريخي هنا marka dib loogu noqdo dadkii xikmadda iyo aragtida u saaxiibka xataa falsafadii hore qayb ka mid ah Aristo iyo Aflaatoon iyo filosofadii shahiirka ahaa sidoo Aflaatoon مثلا ku qorayo kitaabkiisa al-Qanun la yahillu li shakhsin an yuqrida bir-riba bulay qofuma banaana ma aha buu leeyahay in dadka ribo wax lagu amahayo marka hadday falsafadii qadiimka ay tahay iyo hadday saddexdii diimood cirka ka yimid tahay intuba xataa carabtu jaahiliyadii hore nabiga ka horeysay calayhi salaatu wasalaam ribo way isticmaali jireen laakiin haddana inay xuntay way garanayeen ahdigii intaan nabigu nabi noqonin calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 20 jir markuu marayay kacbada daad qaaday kacbadu waxay ku taalaa meel dooxa ah bariya dambe buu qaadi jiray imka meel hoos iyo meel biyo maraan baa loo sameeyay laba buuro dhexdood weeyaan marka roobab xoogani markay da'aan meesha biyo xooga mari jiray kacbadii roob baa dumiyay markii roobku dumiyay ayay quraysh tiraan dib u dhisno laakiin waxay yiraahdeen shart kacbada waynu dhisaynaaye war xoolo riba laga helay iyo xoolo dad laga dhaco dulmiya xoolayo way yiraahdeen kuwa inaan ilaahay kacbadiisa marba ku dhisin yani way garanayeen inay xun tahay walidaalika bay waxay ka ilaaliyeen kacbada inay riba ku dhisaan sida awgeed bay lacagtii kale xalaasha ay bidayeen ay gaari weyday inay kacbadii oo dhan wada dhisaan dabeetana waa kuwan ka tagay intan la yiraahdo xijr Ismaaciil inta yara qoolaabta yari waragsan tahay intaas kacbaday ka mid tahay waxay ahayd daartu ahdigii nabi ibraahim marka lagu qiimeeyay in xaggan hore la soo mariyo oo intaas oo dhamay gudaa gasho laakiin markii ay kharash waayeen ay dhahdeen daarta aan yareyno waa la yareeyay inta kalena calaamadina uu markaa waa la calaamadiyay inta tan oo daartii in ka yar intii ay ahayd ahdigii nabi ibraahim ayaa la dhisay idan jaahiliyada carbeed iyagoo ribadoodu inta badan tan deynta ahayd qof baa deyn ama ahaynaysaa waqtigii markay gaadhow iska bixin kari waayo miyaad bixin baad leedahay mise ribaad ku daraysaa ribaan ku daraya hadduu yidhaha muddo kalaad siinaysaa waa dhaqankoodii ee siduu ahaa su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa oo haddii falaasafadii hore la yaqaanay diintii yuhuudeed tii kiristanka tii muslimka wixiiba hadday xaaraan ku tahay baashuna maanta aan dunida riba mooyaane wax kalaba ay adag tahay in la hayo xaggee wax iska weydaarteen diimihii xaggee laga soo dhaafay falsafadii xaggee laga soo dhaafay xaggee wax ka soo baxeen goormay noqotay interest iyo ribadu wax dhaqaalaha dunida u fiican
yurub kristanka maadaamay xaaraan ka ahayd yuhuudda dadka kale way isku dayeen inay siiyaan iyagana laakiin wadcigoodii ijtimaaciga ahaa muu saamaxaynin markaa way adkayd qarnigii 16aad markay ahayd oo noocun ma renaissancekiiyo waxaanay sheegayaan fufka dambe uu soo bilaabmayey ayay yurub inay diimaha ku yaro madax adeegto soo bilowday 1593kii markay ahayd ayay waxay yidhaahdeen dadyowga jilicsan ee aan xoogsan karin ee iyagu shaqo geli karin hantidooda ribaha loogu badiyo biidnin min alqaadi maxkamaddu markay xukunto agoonta yarar iyo dadka caynkan ee aan lacagtooda ku shaqaysan karin si aanay lacagtooda uga dhammaanin ribaha lagu bixiyo dad ha la yidhahdo interest baa bixinaysaan laakiin ha ogolaada maxay qaadiga maxkamadda jooga waa markii koowaad ay soo banneeyaan inay ribo bixiyaan kadib nimankii madaxda ahaa iyo boqorradii iyo dadkii xoogga waaweynaa iyana way iska bilowdeen inay wax ribo ku qaataan oo maalan luwiskii 14 baan leeyahay 1692 dayn ribowiya buu qaatay xataa baabihii 9aad 1860gii boobka laftiisu waa qaatay bay yidhaahdeen dayn ribo ah laakiin waa qoladii waaweynayd una weli bulshada iyo mujtamaca waa ka xaaraan goormuu haddaa qaanuun noqday thawra alfaransiya markay dhacday thawra alfaransiya waa wada maqasheen soo maaha thawraddii waddanka faransiis ka dhacday boqortooyooyinkii baabiisay boqorkii u dambeeyey iyo wadaadkii kiniisadda xiidmihiisay ku baktiyeen midbaa inta xiidmihiisi lasoo saaraa kii kale looga dhigay maxay boqorka u dambeeya bay yidhahdeen waa inaynu ku baktiinaa xiidmaha wadaadka waayo wadaadada kristanka ee meesha joogay dowladda dulmigeeday taageersanaayeen dabeetana dadku markuu thawradda sameeyey wadaadkii iyo dowladdiiba waa la isku daray oo waa la laayo waa laga wada takhallusay sidaasi awgeed ayaa aljimciya alcumuumiya fi faransa ayaa 12 Oktoobar 1797 qaanuun soo saartay leh ribadu waa banaantay waa awal qaanuun yurub ka soo baxa oo ribo banneeya markaas baa la soo saaray oo lagu baneeyey ribadu dhaqaale ahaan waxba ma kordhiso dhaqaalaha dunida hoos bay u dhigtaa walidaalik tusaale fudud baan idin siinayaa marka recession duwalku galaan dhaqaale burbur u yimaado ee dhaqaaluhu dhulku galo waxa koowaada dowladdu samayso ma taqaanin interestka hoos loo dhigaa si dhaqaale burburka looga soo kaco maalan markuu maraykanku dhaqaaluhu burburay ee shirikaadkii kaceen ee wixii kaceen interestka 0.5 baa la gaadhsiiyey jaban 0 baa la gaadhsiiyey 0 interest dhaqaalayahanadu waxay leeyihiin 0 interest markuu yahay ayaa dunida dhaqaaluhu ugu kacdoon badan yahay oo uu dhaqaalaha dunidu samaynayaa maxay horumar saa daraaddeed duwalku markay recessionku ku dhaco dhaqaale xumadu markay wadannada ku dhacdo ribada hoos loo dhigaa waxay dhahdeen ribadu hadday 0 tagtana waa dhaqaaluhu halkuu ugu fiican yahay haddaa maxaa 0 looga dhigi waayo wadannada horu mareene dee ribada inta xoogga laa qaadatee may ogola inta xoogga leh shirkaadka waaweyn iyo inta xoogga leh iyo bangiyada inta dhaqaalaha haysata ayaa dee dadka dhiig miirata waayo muraabigu waxay dhahdeen ninka ribada qaadanaya waa shaqo aan loo dhididin oo xoola keenta bay yidhahdeen alaslu lacagtu lacag ma dhasho alaslu fi liqtisaad lacagtu lacag ma dhasho lacagtu waa waxa lagu qiimeeyo juhdiga qofka bini aadamkii bixiyey laakiin shaqaa wax dhasha asalku waxa weeyaan shaqaa wax dhasha muraabigu wuxuu rabaa inuu fadhiisto oo lacag qaato wixii khasaare ana inuu dadku ku dhaco muraabigu ma khasaaro isagu waayo isagu lacag buu ku amaahiyey lacagta lagu amaahiyey kuma xidhna mashruucaaga inaad ka faa'iideeya inaad ka khasaartay ilaahumay kaa wada dunto isagu lacagtiisii buu leeyahay interestkii marka waxay dhahdaan asalkani waxa weeyaan ninka wax haystaa ma khasaaro waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatadu ha qabto interestku caynkaa macnihiisu waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatad iyo dadkan dhididaya
iyagu ha ku jiraan inay ama khasaaraan ama faa'iidaan amaa ninka wax haystaa ee muraabiga isagoo lacagta bixinaya isagu waxa weeyaan forever interestkiisuu leeyahay adigu ama khasaar ama warshadaadu ha kacdo ama shaqadaad ku abuuratay ha baaba'do ama waxay doonto ha noqoto isagu waxa weeyaan waa laabud inuu faa'iido isagu waa masuun markaa waxa laga ilaaliya waxa khasaara la yidhaahdo waxay yidhahdaan maadaama aanu jirin dadka lacag ay guranayaan aanu jirinna dhaqaalaha waddankana burbur baa ku dhacaya bay leeyihin waayo markay ribadu kor u kacdo waxaa yaraada dadka shaqada samaynaya maalgelintaa yaraata dabeetana ashyaada qiimahooda kor u kacaan idan markaa baabkan la eego oo dhan isku soo duuduub logiskiska waxba isku badin mayno waayo wakhtigaa aada u yar si aan u sharaxno laakiin waxaynu sheegaynaa ribadu dhaqaalaha faa'iido umale bay yidhaahdaan marka la eega bay leeyihin bulshada iyo isku xidhnaanteeda iyo akhlaaqiyaadkeedana way dumisaa waayo dadka badh bay ka dhigtaa anaaniyiin iyo al-athara wal-anaaniya hunguri dheeraado iyagu wuxuun qaadanaya miskiinkanna dee culayska haysata la yidhi waxbaa lagu daymiyey miskiinkan dhigiisa la cabaya ee habeen iyo maalinba dhididaya ee wixii uu bixiyey iminka dowladahan yaryari waay afrika ay u kici weyday oo ribaday reer galbeed sameeye siiyeen bay u kici weyday waayo afrika waxaa la tilmaamay ribooyinkii la siiyey dhammaanteed intay bixiyeen oo labanlaabkeed bixiyeen ayaa haddana intii la siiyey in ka badan weli lagu leeyahay bal aduu qiyaas waxay lacag amaahdeen oo dhan afrika way celisay way bixisay bale lacag kaloo badan oo dheeraaday bixisay haddana weli waxaa lagu leeyahay maxay wixii la siiyey ka badan baa lagu leeyahay magacay u qurxsadeen waxay yidhaahdeen dowladaha deeqda bixiya ma deeq baa dunida cidisiisiisaa ma jirto deeq waddan la siiyey halku ka odhan lahaa dowladaha dadka dhiigmiirta ee ribada ka qaada ayaa lagu odhanaya dowladaha deeqda bixiya deeqi ma jirto waa riba waa intaa 1 bilyan la amaahiyo waddanka 10 sannadood ku bixinaysaa 20 sannaad ku bixinaysaa dan waxa laaliya wixii waddanku shaqaynayo oo dhan waa inuu dib u celiyaa siduu dib ugu celin karaya waxaa la leeyahay bangigaa imanaya si dakhligaagu bato cashuurta kordhi kan ka samee cashuuraha marka la kordhiya cashuurta yaa bixiya ma tujaartaa bixisaa maya koob shaaho kastoo aad cabto badh bay dowladdu leedahay soo saa ma ogid waxaa laga yaabaa halkan inaad istirahdaan cashuur baa la bixiya soomaaliya ma cashuur baa la bixiya ha cashuur baa la bixiyaa waayo dowladdu markay cashuur qaado ninka taajirka ah bay mar ka wada qaadaysaa ninka taajirka markabka keenaya dabeetana waxaa leeyahay marka waa cinka 1 milyan oo cashuuro shub 1 milyan taajirku yuu xisaabinaya markaa waa kharash buu leeyahay dabeetana jawaankii sonkorta ahba $3 baa ku kordhaya $3 ayaa laga qaadaya koobkaad cabtaba badh bay dowladdu cabtay taajirka iyo bangiguna badh bay cabbeen shaarkaad iibsataba badh bay leeyihin idan aakhirka qofka dhiiggiisa la cabaya waa qofka suuqa jooga waa miskiinkan wax iibsadee magaalada jooga weeyaan ninka tujaarta iyo dowladda iyo waxoo dhammi ninkay dhiiggiisa cabaya waa miskiinka kan sida awgeed bulshada dhexdeeda way baabi'isaa oo xidhiidhkii bulshadu ay lahayd oo dhan baa luma bulshada waxay u qaybisaa ribadu dabaqo aan weligeed khasaarin marka waxay dhahaan lacagtu iyagunbay ku biiraysaa bangiyada iyo insuranska kuwa lacagtu iyaga ku biirtaa qolada ribada qaadataa lacagta waddanka oo dhammi marka iyaguna way sii karayaan bulshaduna way sii faqrinaysaa bulsho kastoo dunida joogta way sii faqrinaysaa waayo dowladdu khadamaadka matalan dowladda joogtaan khadamaadkii ay dadka ahayd in la siyaabay bixin kari waayeysaa biyihii laydhkii khadamaadkii wadooyinkii kan waxa ka waa bixin kari dowladdu maxay samaysaa dowladda lacag bay amaahataa lacagta ayaa laga amaahdaa kuwan ribada laga amaahdaa dowladda waxaa la yidhahdaa lacagta intaasaad ku bixinaysaa lacagtii xaggee laga keenaa adigaagan unbaa lagugu kordhinayaa adunba marqaaga la cabaya markaa dowladda iyo tujaarta iyo kuwa bangiga maraqooda iyo dhididkooda waxay cabbaan miskiinkan daalay ninkan uu shaqaynaya 8 subaxnimo inta la kiciyo ilaa 4 galabnimo rooraya kaas baa dhiiggiisa la wada cabaya dadkoo dhammi sida awgeed bulshadu laba dabaqay noqotaa dabaqo ru'uusul amwaala iyagu ma shaqeeyaan waayo shaqo uma baahna mana khasaaro lacagtiisana meel khasaaraysaba geyn maayo bangigaasay taallaa bangiguna dadku amaamaahinaya isagoo iska fadhiya ayuu wixiisu socdaa isagu markaa meelahaas unbuu fasax tegi meelahaasu isagu ku maqan yahay wax shaqaana ma hayo bunuugtu markaa waxay yidhahdaan waxay qabtaan waa taajiru lquruud
bangi horumar iyo bangi tijaarada bangi beeraha iyo bangi waxaasoo dhan waa magacyo lagu bixiyay waxba kama jiraan waxa qudhay jira waa maxay waa nimanka ka baac mushtareeya deynta bank waa sida xeerka u yaalla bangigu waxa weeyaan inuu deynta taajirka deynta u yahay qaanuun kastoo bangigu yaalla waa intaa dowladdu qaanuunka ay u dhigtay ninkan waxa weeyaan wax kale inuu iibiyo looma ogola waxba ma galo wuxuunbuu isagu iibiyaa maxay deymuhu iibiyaa markaa isagu deynta ayuu ka baac mushtareeyaa haddaba fi shariica alislaamiya deyntan dursaar kale ay sheegayaan sharciga islaamiga iyo kii diimee hore iyo kii dhaqaalayanadee hore iyo kii falasafadee hore dhammaantood mamnuucba ku yihi ribadu ayan kaanat dhammaanteed waa mamnuuc fi shariica alislaamiya maxaa ribo la yidhahdaa marka aan tagna haddaba haddaynu isla garannay ribadu sharciga islaam wuxuu ka qabo sharciyadii diimihii hore waxay ka qabeen falaasafadii hore waxay ka qabto dhaqaalayahanada maanta dunida joogaa siday u arkaan oo ay leeyihiin zero riba unbaa ugu fiican waddanka haddii la rabo dhaqaalihiisu inuu horu maro dulmiga ijtimaaciga ay ku samaynayaan bulshada oo dadna la leeyo sida dameero ay u shaqaynayaan inna iska fadhido khasaaroo dhabe uu ku dhacaya un intan xoogsanaysa shaqaynaysa kaasi waa inaanu diin ahaan iyo dhaqaale ahaan midnaba faa'iido lahayn ribo waxaa timi markaa noociyaadka ribada ama qaybaha ribada culammadu inta badan ribada labay u qaybiyaan mid waxay dhahaan riba albuyuuc ribada baaca mushtarka midna waxa la dhahaan riba alquruud ribada deynta gasha si kale haddaynu u tilmaamno mid waxay dhahaan riba nasii'a ribada nasii'ada annasii'a iyo ta'jiila wa ta'khiir ribada dib u dhigista oo waa maxay waa hanti in lagu amaahiyo waktina lagu qabto ziyaadana lagu saaro uun ziyaada lagu saaro 3% baad bixinaysaa 4% 5% 6% waxay doontaa ha noqoto waa lacag lagu siinayo oo maxay ziyaada aad ku bixinayso ziyaadadaasi waa maxay muqaabilkeedu ila tijaaro kumaad gelini tijaaro kumay siin tijaaro maaha wax kale ziyaadadan maxaa muqaabil u ah waxba muqaabil u ah zamanka lagu siiyey ribada nooca kale waxaa la yidhaha riba alfadl riba alfadl alfadlu yani did annaqs waa ribada dheeraadka waxa weeyaan laba jinsi oo isku nooc ah sharcigu ma ogola inay kala bataan xagga wasniga iyo keylka kii lagu iibsanayaba waa ribada tani waxay yidhahdaan waa min baabi dhariica baa loo mamnuucay sadi dhariica si aan ta kale loogu gudbin maalan dahab haddaad ku iibinayso waa inuu miisaan isleeg uu yahay yaddan biyadinna uu yahay haddana la kala qaato dahabku amaah ma galo kaygu waa 23 kaaguna waa 21 ma leh waa miisaankunbaa la saarayaa haddaanad ku qaadanaynin xor baad u tahay suuqa ka iibso lacag siiso lacagtaada hadhow waxaad doonaysa ku iibso ama 24 ku iibso ama 20 aday kuu taalla waxaad ku iibsanayso laakiin haddaad dahab ku iibinayso waa inuu noqdaa maxay miisaan isleeg sidaa awgeed 6 shay culammadu waa isku wada waafaqsayin inuu yahay riba marka riba alfadliga la joogo ribada kalena iyana waa la isku waafaqsanyay haddaba markaynu soo duuduubno fuqahada badh ayaa sheega shaaficiyadoo kale ribalyad oo labada shay ribowiga in mid dib uu dhigmo waa riba iyana laba dahabo isleeg baabaynu siisanaynaa laakiin isku iibsanaynaa laakiin mid baa dib loo dhigay qabd alciwadayn taakhiiru qabd alciwadayn waaxadihima ma bannaana isku soo duuduuboo labadaasunbay isugu soo noqonayaan riba alfadliga waxaynu nidhi sababta loo taxriimiyey waa sadan lidariica waa inaan riba nasii'a aw riba alquruud inaanay ku gaadhsiin baa loo mamnuucay markaan soo duuduubno oo haddaa maxaa xal ah nin baa lacag haystaa kuma shaqaysan karo ama shaqo ma garanayo haddii aanu bandhiga dhiganin oo bahasha guranin sidee baa xal loo helaya shareecada islaamka waxay ogoshahay maalka iyo juhdiga in la isku daro dabeetana waxaa ka soo baxa la wada yeesho ka soo qaad waxaan warshad baan samaynayaa bangigaan tegay hadduu bangi islaamiyayey warshadaan u sheegay waxay ka shaqaynaysa iyo suuqaan u hayay waa kan iyo wixii baanu ku heshiinay
bankigu lacagtuu bixinaya oo wuxuu gelinayaa warshadda inaan helo waxaanu ku heshiinaynaa waxa weeyaan markaa nidaam mudaarabadu waa maxay wixii ka soo baxa ee dheefa inaan wadaagno waxaa laga yaabaa bankigana insaan uga faa'iido badantay maalan wixii soo baxa 30% baad leedahay ana 70% baan leeyahay ama cagsiga 50-50 leen 40-50 leen sayn doonaan uga heshiino wixii ka soo baxa oo hadday waxba soo bixi waayaanna dee anna juhdigaygii waan khasaaraya isna wixii khasaare gaadhay maalkaa buu khasaaraya يعني مثلا ورشدي بان دسنay waa shaqaynay wixii khasaara yimi 10% khasaara baa soo galay 10% ka ninka maalka qabaya aniguna intaan ka shaqaynay mushahar leeyma ogola mushaharkaygu waxa weeyaan wixii ka soo baxay baan wax ku leeyahay aniguna xoogaygi iyo juhdigaygi ayaan khasaaraya idan labada qof ama way wada khasaarayaan ama way wada faa'iidayaan laakiin in la yiraahdo miskiinkuna markasta khasaaraha qabo تاجرك أما إن كان مالقبين كنا مركز تفائدة سووا هقاطو سواء أدو أما خسارة ما فائدة تشرعكم موقلة تسر بدية لكن هدو أقول لي هاي لبضبة مركا ومضاربة وحبان وضلنا هاي وهنا صورة قلب مركز تاني يوقف فائدة بضت وهكذا شرعكم بنيي بيع السلم كو وإن مالك الله الرئيسية شيء نودبو دعوه مثلا العقبان وباهني beertaydii inaan falo waxaan u baahnay lacagna ma haysto ima inuu mudaaraba ila galo dee aanu wada shaqaysano ama se inuu muqaddam wax iga iibsado oo waa maxay wuxuu leeyahay lacagtaan ku sii siinaya laakiin hadhow dee lacag soo celin maysid waxaan kaa rabaa 40 kintaal oo galeeya markaad galeeydu ku soo go'do 40 kan isagu muxuu ku falayaa wuxuu ku falayaa qiimahaad wax ka dhimaysaa ilaan lacagtu ku sii amaahiyay si uu isagu hadhow isagu suuqiisa wuxuu doonaa ka siisto mesela hadduu qiimo ahaan lahaa suuqa markaan joogo 40 in la iga siisanayo isagu lacag muqaddam 830 oo kale iga siisanaya marka ana lacagtaan u baahnay isna raashinka inuu hadhow ka baac mushtaraysi u baahan yahay ka waa loo galay waxbaan kala iibsanay lacag baan ka qaatay sicir baan ku heshiinay isna hadhow waxaan siinayaa maxay raashinkii soo baxay baan siinaya kaasina waa qaab kale waxa kaloo loo ogol yahay bayc muajala oo thamanka la kordhiyo mobilka kan wuxuu suuqa ka joogaa $500 waxa ku yidhi 500 ma haysto aniga 600 deyn iga sii okay way iga sii markana waxbaanu kala iibsan laakiin qiimihii suuqa oo qiimo ka yara sareeya ayuu igaga iibiyay maadaama aan maxay deyn ahaan ku qaadanayo iyana taasina waa bannaan tahay waxa kaloo bannaan oo sharciyadu bannaysay alqard alxasan dadka in afraad iyo mujtamac iyo xukuumadba in wax la maahin karo oo nabigu wuxuu ku tilmaamaya dirhamka labada dirham ee deynta ahi dirham sadaqa bay u dhigmaan يعني إن أنا بهان $1 يديمسو waxay u dhigantaa 500 oo siisma xaq ajarka marka laga eego ay baahidaydeena waan qabsaday adigana lacagtaadii waan ku soo celinaya marka kan waxaad faa'iideysaa waa ajar ma faa'iideysid maxay iyo xidhiidhka walaalnimo iyo bulshadana aad waxud qabatay baad faa'iideysaa laakiin hantidaadu waa tii uun xalka kale shariicada islaamiga banaysay waxa weeyaan dee waa sadaqaadkii waa deyntii waa zakadii مثلا zakada qofku hadduu faqri ku dhaco aan waxba haysanin waxa la yidhi zaka la siinaya hadduu deymoobo deynta uu iska bixin kari waayo walghaarimiin zaka u bannaan in la siiyo hadduu ibnu sabiil yahay oo jidku ku go'o zaka u bannaan in la siiyo lacag kaloo muslimiinta laga ururiyo badan baa jirto bangiga ku jirta oo ah qofka muslimka haddii mushkiladan ay haysato in xalkeeda loo helo oo bulshadu ay xaggan xalka ka hesho sida awgeed culimada muslimiintii waxay leeyihiin عقد كسته عقد هو كونتراكت كستم او قشد او الربا ومفسوخ سيدي سوء بري قفك هنتي دالنا وين هنتي دي سيون لسيا ولو عليا عقد ونو برسين هدا هنتي دي علي من الشرتو وحوكو صارت النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع انتو استاقبوا لي ربا الجاهلية موضوع ربا دي وقت الجاهلية دا كلا قادتين ردمي وحبا كما جيران وأول الربا أضعه ربانا ربا دا وقوه الرئيسي أن دمينيا وطايدي بولي وأديركي الربا ديسي
عباس بن عبد المطلب بكو باع مشترين جري إنه سيدا بنقياد الربا قاطو فإنه موضوع كله وح الله لي وح عباس العقل قال ما قنع وحي الربا صار ريد وحبك ما جيران انتي سونو سو عليا بن ابوي عباس وحي العقل ربا كو بخيي هذا لا قبل ابو وحبك ما جيران وحن بوليي maxay lafihiisi intiisuuna loo soo celiyo من باع بيعا أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل ويفسخ البيع ما كان قائما ابن الرشد باو حليه نكي بيع وحكو بيعيي آن حلاشنين الربا دا يدا هداد حلاشتا دواد قالوا بيسا آن حلاشنين عقوبة كلول وإن العقابة بوليه هدي آن لوغو عذر دارين جاهل نمو بيعاسنا وبرية maxaa riba galan maxaanse riba gelin fi shariica lix shay nabigu wuxuu yidhi ribay galaan dahab lagu iibiyo iyo fida lagu iibiyo dahab lagu iibiya waa haa'an bihaa iyo miqdaar isleeg iyo caynkaa in hadda loo kala qaato fida lagu iibiyana waa la mid dahabka iyo fidadu cahdigaa waxay joogeen halkan iminka doolaradan iyo waxaan la samaynayo doolarkan iyo waxani waa tuugo cusub oo dadka lagu xado lacagaha dawladdu samayso الأصل وحي هيد بني آدم كو وحا وحكو كلا جدن جري دهب عادية دقال كلا بعد الدنيا ده مركي لقى بحي أي الدولة دي حوقة بدنايا يسوتجي شرقالين أي لين أن كردين الدولار كمرايكان كإنترناشنال وح وحلوه كلا قطو بشرط إنه مرايكان كنا أقبله شان يصد وقيادات هلك الدولار إنه نقضه بنجة تعالى وقفك هدو الدولار صح رأيه إنه هلا يوم حي 35 أونس شان يصد وقيادات إنه هلا مرايكان كانوا صحيحي ينوى أقبلين تيبا الله وضي دوني الدولار كي مركز وحكو كلا يبستي مدة مركي اللي جوجا دوري اللي حدا كي مريسو أيام بالله أركي مريكان كي يود قالنا كتير هرومرنا سماين يود قاليس وسيب برحكي وحسكي ويدارتين بالليلي بالكي ما طرف فالصعب صوت ضوضوبتي دولار كسوق جوجا وكبدا يعني داب كاتي ستي دي بالله الشري وحيد الشنكة لكو درا أفرتن بالله قدك إنه جويو بالوايا أفرتن كانوا كاقدك نيبال ليلي واحد ما سمايني ويسكي وتي 1972 ما بقى مدحوينه هذا وحيري ذهب كي يبهل كي وان كلا يرفوشنا وان كلا فوشنا معناه دوام حي وحلو بدلي ورقي الدولة اسك سميستين ونوضه إنك هدينو اسك سميسنا لعقتنا الصومالية تالي كان الله انفليشن كان مركي ودا وينو كعينا سوماها زي دولة العقبة صوت مركي لكن كان ده انفليشن الدنيا دورن وحدد شوقا لقبه مركي الدولة مركي وانا اسك بعدها دنيا دون way خسارتها وكا حق بدنا waa ku socotaa salad waa intaa ma ha dollarku inuu dadka wax dheeriyay markaynu soo duubno dhowr shay oo waxa la cunaa burka البر بالبر ibn nabigu yiri burku ama wabalkan la yiraahdo qamaxa maxaynu dhaana sareen lagu iibiyo ama shaciir lagu iibiyo waa heedo kale wax u eg ama timirta timir lagu iibiyo ama milix lagu iibiyo kuwa nabigu wuxuu yiri waa mathalan bimathal in islaagun baa la isku iibin karaa sawaa'in bisawaa'in in isku jaango an yadan biyadin oo marka la kala qaato haddii se asnaaftaasi ay iskhilaafsan tahay sida doontaan baa u iibin kartaan haday yadan biyadanta soo duuduub dahabka iyo fidada kow in halka lagu kala qaato mooyaan si kale la isugu iibin karo mar labaad dahab hadii lagu iibinayo waa inuu miisaanka iyo wax walba iska leekaada dahab iyo fida hadii la isku iibinayo waa laba nooc waa kala badan karaan laakiin weyn hadda la kala qaataa bur iyo bur hadaad isku iibinayso waa inay isku miisaan noqdaan haddana la kala qaataa shaciir isku miisaan haddana la kala qaataa haddii labada taraf la isku iibinayo dahab iyo cunada hadii la isku iibinayo marka waana kala badan karaan dibna waa kala dhici karaan waa tijaarada caadiga aynu tijaarayno aad marna bariis ibsato marna hadhuudh ibsato lacagta bixinayso haddana waa la kala qaadan karaa waana la kala deynsan karaa waqti dambe laakiin kuwa kani ma aqbalaan المماثلة والتقابض والحلول بشرطية إن يسلاقي هذا لك لقاطي وقتيا هذا اللي تشوفه وقتي وحن رجينا إنه سكر ماضي استثناءات يربي علماء الشيغان وحبا استثناءات كهذا وصي بحمينه وحن كسو ضوضو بينها ربادو ديمه سمد كيمي وقوم ممنوع
yahuud kiristan iyo islaamnimoba dhaqaalayahanada iyo falasifadana waxay tilmaamayaan inay tahay dhiig miirasho bulshada qayb ka mid ay rabto inay dadka dhiig miirato oo aan manfac ku jirin ilaahayna wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa war hooy ribo ka cunaya iyo ka qaadanaya wixii noo dhammoo isku daro haddaad ribada dayn weydaan dagaal alle iyo rasuulkiisa usoo diyaargarooba sharciga qur-aanka kuma soo aroorin wax kaloo la leeyahay ilaahay baa kula dagaalamaya oo aan ahayn maxay aan ribo ahayn waxaa la yidhi zinada oo aad weliba hooyadaa ka zinaysata way ka dembi weyntay waxaa la tilmaamay 36 zino aad gashay inay ka weyntay waxaa la tilmaamay 7 lagu halaagsamay inay ka mid tahay waxaa la sheegayaa oo dhammi qur-aan iyo xadiidba inay mamnuuc tahay dhaqaal ahaana inaanay bannaanayn dadku markay dhulkan yimaadeen way fudaydsadeen maadaama la arkay wax walba oo ribo iskaga socda oo mar haddii aad shaqo heshana dee bangiyadu ay aaminayaan inay waxoogaa ku siiyaan ama ribo dadku iska fudaydsaday kaanama aanay dembi ahayn war waddo gaal ha qaadina war iyaga laftooda og in la isdhiig miiranayo any professor bal economicska u tago weydii iyaga laftooda og in la isdhiig miiranayo marka aniguna inta la adoonsadaa baan ku biiraya waay inta badan ay isu dilaan markay shaqo waayaan waayo jaamacaddii ribu ku soo dhigtay guri ribaana wuu qaatay gaadhi ribaana wuu qaatay shaqada hadduu waayo deyntiiba waa laga xaraashaya markaa waa inuu isdilaa wuxuu noolaada garan maayo ribadu ma ka dhammaanaysaa maya interestku siduu u socdo benshankaad ku gelaysaa sidaad lagugu wade lagu dhigmeeranayo intaad bixisay boqolaabkeedna waad bixinaysaa welina sidii baa lagu leeyahy qofkaan ribo bixini waa xor alxuriya alkaamila markaasaad haysataa maanta aad shaqo hesho waad shaqaysan haddaad shaqo weydo waad iska dayn cidina wax kaa xaraashi mayso cidina wax kuguma leh haddaad doonto waad iska dhoofi haddaad doonto waad iskaga tegi waxaagee adigaa leh war ribadu adduunkana waa dullinimo ku noolow dhaqaalahaana waa burbur aakhirana waa ciqaab dunida lafteedana ilaahay wuxuu ku yidhi yamxaqu llaahu riba waa baraka tiraya aad ku gubanuun ribaad guri ku qaadan adoo moodaya inaad isla carruurtii baan wadi kari weyn carruurtun baa lagugu itixaamay carruurtii iyo islaantii aduunbaa madaxa isla geliyo berritun baydan kala yaaci doontaan waayo ilaahay baa dagaal kula jirtaa ilaahay si uu kuula dagaalamo garan waayi maayo waayana maayo idan adu waxaad lahayd carruurtii iyo islaantaan u danaynaya oo guriga u qaaday ribada ah carruurtii iyo islaantuna iyagaba ku eryi doona marka lagugu itixaamo idan war ribaha isku gelina haddaad rabtaan ilaahay inay heshiis la ahaataan oo cibaadada la idinka aqbalo oo adduunkiina aydan khasaarin aakhiradiinana aydan khasaarin ribaha gelina wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin